ayaa magaalada Muqdisho maanta Google ugu fidisay beesha Dalandoole Mudulood sida warkan inoogu faafaynaysa wariyahayga Kafeed Daahir Ibrahim kulan ay isugu yimaadeen qoomiyadda Oromada iyo beesha Dalandoole Mudulood kulankan ayaa ahaa mid ay soo agaasimeen qoomiyadda Oromada ayna ugu gogoldhigayeen walaalahooda Dalandoole Mudulood kulankan gogoldhiga ayaa waxa ka soo qayb galay odayaal dhaqameedyada cuqaasha ugaasyada labada dhinacba inta badan kulanka ayaa waxa looga hadlay xiriirka walaaltinimo ee soo jireenka ee ka dhaxeeya qoomiyadda Oromada iyo Dalandoole Mudulood sidoo kale waxay diiradda saareen inay qoomiyadda Oromada ay hesho xuquuqdooda ka maqan ugu horeyn waxa goobta ka hadlay qaar ka mid ah qoomiyadda Oromada oo iyagu kulankan soo agaasimay adduunka meel 40 sano qof uu qaxooti ku yahay ma jirto iyo 50 sano waxaan xasuustaa 64tii bilaajo markaa nimid dadkii gabdhaha na siiyay guryahooda nagu soo dhaweey waxay ahaayeen beeshan maanta waxa idin soo dhaweynaya ilmihii gabdhihiinu ay dhaleen odabtiyaasha u haydeen waxayna dalbanayaan inay helaan xaquuqdii wadankan ay ku lahaayeen waxaan idiin soo horumarsanay bani aadamku hadduu jasa leeyahay jasaad leedihiin asxantu inaan tilmaano laba ubadkaad dhasheenna xaquuqdii ay lahayn dalbanayeen aada barbar istaagtaan intaa waxaa dheeri ah annagu dad wada dhashaan nahay ma la qarin 80% geeska Afrika dadka ku nool ayaa nahay waana isla dhalanay luuqadana kuma xirna walaalayaal waxaan rabnaa soo dhaweyntii walaaltinimo shalay ayaan rabnaa midii xaquuqeedna inaan helno inaadna barbar istaagtaan baan doonaynaa taasaan idinka dalbanaynaa sidoo kale waxa iyaguna hadallo kooban goobta ka jeediyay odayaasha dhaqanka ee beesha Dalandoole Mudulood waxayna u mahad celiyeen qoomiyadda Oromada ay walaalaha yihiin goglahan waa socod doonaan meel fogna waa gaari doonaan maanta sida aad ka warqabtiin dulmi ugu weyn wuxuu gaaray dadkii shalay aan soo dhaweynay oo guryahayna dejinay oo goofafkayna siinay oo dhulalkayna guryo ka dheer ka dhisteen maalin dhaweeda markii la yiray xamar waxbaa la siiyay nacnacda dhacday iyo waxa dhacay waad maqasheen Boosaaso iyo Kismaayo dadka ka jooga meeshaan Dalandoole ku degan yihiin kibir iyo faqfaqna cid aan ka yeelayna male shalay doonay ku yimideen doontoodiyayna ku naqad doonaan runta markay timaado balse waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan dal iyo dibadba waxaan rabnaa in dadkaanu markii hore waxay ka yimideen Ethiopia markay imaanayeen dalkan waxay ku yimideen ayagoo isirka ay ka dhasheen raadsanayo ayay dalkan ku yimideen markay imaanayeen waxa loo yaqaan Oromo dalkan imaato halka markay yimaadeen isirka ay ka dhasheen ayaa soo dhaweeyay magaaladan ku soo dhaweeyay gabdha siiyay dejiyay maantana waxay marayaan 30,000 oo qoys in ka badan ay marayaan sidii walaalkii hore u sheegay adduunyada meel qofka uu xuquuq la'aan ku yahay 40 sano ma jirto qofka 5 sano ku helaa xuquuqda ku helaa markuu horeyso waan cadeeynaa Oromo Soomaali dadkan Oromo dad kale oo jiisi kale ah wadan kale ka yimid oo xuquuqda kan ka raadsanaya ma ahanay dadkan markay wadanka imaanayeen markii hore waxay ku yimideen inay dadkan la dhasheen isirkaas ay ku yimideen Kafeed Daahir Somali Cable Muqdisho.